dunideena waxaa ku nool 2.4 bilyan oo Kirishtaan ah, 2 bilyan oo Muslimiin ah, 1.1 bilyan oo Hinduus ah, 500 oo milyan oo Buddhist ah, 500 oo milyan oo Allakoodyo Agnostics ah. Sidoo kale, guud ahaan waxaa caalamka ka jira 4,300 oo diimood. Haddaba maxay tahay sababta aynu ku dooranayno diinta Islaamka? Sidee baan ku ogaan karnaa inay tahay diinta saxda ah? Haddaba su'aashan si aynu u xalinno, aynu isticmaalno falsafadii caan baxday ee Descartes ee ahayd haddii ay salad ay ku jiraan tufaaxyo bololay iyo tufaaxyo fiican lagugu yiraahdo kala saar tufaaxyadan, gacanta inaad geliso dambiisha, tufaaxa aad soo qabatana haddii uu noqdo mid qurmay intii aad ku celin lahayd saladii, halka haddii uu wanaagsanaadana aad meel dhigan lahayd, ha samaynin midda, waayo kul waliba oo aad gacanta geliso salada 50% ayaad haysataa fursadii aad ku soo qaban lahayd tufaax bad qaba. taa beddelkeeda dhammaan tufaaxyada ka daadi dambiisha, kadibna tufaaxa badka qabo ku rido dambiishaadii. midaasi mid la mid ah dhammaan maskaxdeena aynu ka saarno diimaha adduunka ka jira oo dhan, oo aan ka soo qaadno inaanan wax diina haysanin. deedna aan isweydiino, maxay tahay sababta aan diinta Islaamka kaga dooranayno 4,300 diimood ee caalamka ka jira, oo maxay dheertaa diimaha kale diinta Islaamka? sidee ayaana ku ogaan karaa saxaanshaheeda dhabta ah? kolkii la fiiriyo physics-ka, haddii la rabo in arrin la sameeyo, arrintaas la sameynayo waxaa qasaba inuu sameynayo faacil awoodo sameynteeda. tusaale ahaan, haddii canug yar aan aragno isagoo jiidaya diyaarad aad u weyn, kolkiiba waxaa caqligeena ku soo degdegaya in diyaaraddaasi uu baylo saaran yahay oo isagu wado diyaaradda, ama ay jiraan mashiino qarsoon oo sababaya dhaqaaqa diyaaradda, waayo waxaynu aaminsannahay in canugaas yar uusan awoodin jiidista diyaaraddaasi aadka u weyn. waana sababta aan u raadinayno faacil awooda dhaqaajinta diyaaraddaasi. sidaasi si la mid ah, kolka aynu fiirino deegaankeena, caanaha lo'da aynu isticmaalno, haddii aynu aaminno in faacilka soo saaro uu yahay lo'da, ama malabka faacilka sameeya inay tahay shinnida, carro guduud iyo carro madow lagu waraabiyo biyo, deedna aynu ka guranno mirayaal kala duwan, faacilkeedana aynu u aragno geedaha, waxaynu ku dhacaynaa caqliyaradii haddaatay aynu ku diidnay in canug yar uusan jiidi karin diyaarad aad u weyn. taa cagsigeeda waxaa qasaba inaynu raadino inay jirto awood caanaha ka soo saarta lo'da, malabka ka soo saarta shinnida, midhahana ka soo saarta geedaha. haddii aynu sii ogaano in caanaha laga helo dufan, lactose iyo borotiino, malabka laga helo carbohydrate, biyo iyo macdano kala duwan, midhaha aynu isticmaalana ay ku jiraan fitamiino iyo macdano jirkeena siiya tamar, qirashada jiritaanka awoodda waxay noo raacaya inay awooddaasi tahay mid leh cilmi, doonis iyo weliba awood ka baxsan midda aynu haysanno. waxaynu sidaa ku aaminaynaa inuu jiro abuuray waxyaabihii aynu soo sheegnay, waxaana halka isaga ilaabaynaa diimaha iyo aragtiyaha Buddhismka, Judaismka, Allakoodyada, Agnosticismka, Naturalismka iyo weliba Skepticismka, waayo dhammaantood waxay beeniyeen jiritaanka awooddaasi iyo in ficiladaasi oo dhan uu ka dambeeyo awood badan. haddaba haddii aynu isku waafaqnay jiritaanka abuure, su'aasha labaad ee aan isweydiin karno waa, talow abuurahaasi ma halbaa mise waa koox abuurayaal oo isku tegay si ay isku saacidaan una soo saaraan wax aadanaha nacfi iyo nafaqaba u leh? kolka aynu fiirino cara edegta aynu ku noolnahay, atamasyada yaryar ilaa iyo xidigaha, caalamka weyn oo ay ku jiraan meerayaasha, ilaa caalamka yar ee ka jira gudaha jirkeena, waxaynu ogaanaynaa in gebi ahaanba ay ku socdaan nidaam dhammaystiran. kolkii aynu sii eegno jiritaanka geerida, duqnimada, xanuunada iyo isku dhacyada xidigaha, waxaynu sii xaqiiqsanaynaa in nidaamkaasi yahay mid aad looga shaqeeyay oo aan lahayn wax ceeb ah. waana sababta uu saynisku u aqbalo inay koonka ka jiraan xeerar guud oo ka madax bannaan aaminta iyo isbeyskaba, sida xeerka cufisjiidadka, xeerka kaysashada tamarta, iyo xeerarka dhaqaaqa ee Isaac Newton. haddaba ujeeddada loo sameeyo xukun waa ka hortagga dhibaato iyo isku dhac, oo haddii ay gacmo kala duwan hal shaqo la wada geliyo, shaqadaasi waxay u badan tahay inaysan qabsoomeynin. tusaale ahaan, haddii hal wadan uu yeesho 2 madaxweyne, hal degmo ay yeelato 2 gudoomiye, hal iskuulna uu yeesho 2 maamule, waxaana shaki ku jirin in nidaam iyo kala dambeyn aynan halkaa ka jirayn. sidaasi si la mid ah, haddii uu koonka ka jiri lahaa 2 ilaah, hal ilaah wuxuu rabi lahaa inuu annagana abuuro,
halka ilaaha kalena uusan rabi lahayn. Ilaah haddii uu raboodo inuu dhir ama xeewaan abuuro, midka kale waxa uu rabi lahaa inuu buuro iyo xidiga uu abuuro. Ilaah haddii uu rabo maanta inay qorax jirto, midka kale waxa uu rabi lahaa inay ceeryaamo jirto. Ilaah haddii uu raboodo inuu roob da'o maanta, midka kale waxa uu rabi lahaa inuu baraf da'o. oo haddii hal ilaah ka badan uu jiri lahaa, marnaba macquul ma ahaan lahayn inuu koonkan ka jiro nidaam dhammaystiran. sidaasina waxaynu ku aaminaynaa in haddii uu ilaah jiro ay qasab tahay inuu hal ilaah oo kaliya jiro. waxaana halkaa ku beeninaynaa diimaha iyo aragtiyaha qaba in hal ilaah ka badan uu jiro, sida ilaahyo beenaadyadii Giriiga, Hittite, Firiijiyiinta iyo weliba aragtiyihii Paganism iyo Polytheism. tilaabteena saddexaad, bal aynu isticmaalno hanaan isbarbardhigeed. haddii aan moobil soo gadano, waxaa la socda warqad noo tilmaamaysa sida loo isticmaalo oo shirkadda moobilka soo saartay waxay nagu leedahay moobilkan annaga ayaa samaynay, annaga ayaana idinkaga aqoon badan ee waddadan u mara isticmaalkiisa. qaboojiyayaasha, makiinadaha, baabuurta, xitaa daawooyinka aynu isticmaalno way la socotaa warqaddaasi, iyadoo inoo tilmaamaysa meesha aan dhigi karno, meesha aanu u isticmaali karno iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay. haddaba haddii waxyaabihii ay aadanuhu sameeyeen ee aadka u fududaa ay la socoto warqad ama buugyaro inoo sharaxaya sida loo isticmaalo, miyuunan allihii koonkan quruxda badan abuuray aynan ahayn inuu warqad ama buugyaro sida koonka loo isticmaalo iyo wax uu ka kooban yahay inoo sharaxaya ina siinayn? miyuunan alle inooga jawaabayn saddexda su'aalood ee filosofiyada wareeriyey ee kala ah kumaan ahay, xaggeen ka imid iyo xaggeen u socdaa? miyuunan inooga waramaynin qisooyinkii dadkii inaga horreeyey si aynu ugu cibro qaadano? miyuunan ujeeddada uu inoo abuuray iyo wax uu inaga rabo inoo sheegayn? haddaba diinta aynu raadinayno waa inay noqotaa diin leh kitaab aynu ka heli karno su'aal weliba jawaabteeda. waxaana sidaasi cagta ku marinay diimaha iyo aragtiyaha diiday jiritaanka kitaab xagga alle ka imaaday sida diisamka, bantheismka, shintonismka, tengrismka, laitismka iyo weliba nihilismka. tilaabta afaraad, bal aan idin weydiiyey kitaab kaliya ma inoogu filan yahay? tusaale ahaan, wasaaradda waxbarashada haddii ay soo saarto buugaag deedna ay ardada u qaybiso, ardadaasi ma ku filan yihiin buugaagtaasi si ay wax u bartaan? miyaynan qasab ahayn ardadaasi macallin u sharax buugaagtaasi inay helaan kitaab aan la fahmi karayn? haddana haddii uu macallin la'aan sii noqdo, warqadaha afka la isaga tiro ee maqaayadaha yaalla muxuu dhaamayaa? sidoo kale kooxaha kubadda ciyaaro sow qasab ma ahan inay yeeshaan tababare. qolada filimaanta sameeyo sow qasab ma ahan inay helaan daaragtaro u sameeya filmo guulaysta. sidaasi si la mid ah, kitaabkii alle subxaana wa tacaala soo dejiyey sow qasab ma ahan inuu soo raaciyo qof dadka u sharaxa ayna kaga daydaan ficiladiisa. sow qofkaasi qasab ma ahan laftiisu inuu asaagiisa wax dheeraado. qofkaasna waa nebigana loo soo diray, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. halkaasina waxaan cagta ku marinay diimaha iyo aragtiyaha aanan aaminsanayn nebiyada sida hinduusamka, joodhuusamka iyo weliba doorsolog. haddaba 4,300 ee diimood ee adduunka ka jira, diimaha ogol jiritaanka alla koonka abuuray, allahaasna uu hal ilaah yahay, soona dejiyey kitaab isagoona dadka u soo diray nebi, waa 3 diimood oo kaliya oo kala ah diinta Yuhuudda, diinta Kirishtaanka iyo weliba diinta Islaamka. waxaa macquula inay maskaxdaadu ku soo dhacdo, Kirishtaanka waxayba aaminsan yihiin Trinity oo ah 3 ilaah oo isku ilaah ah, maxaa ugu darta diimaha aaminsan halka ilaah? si su'aashan inta aanan ka jawaabin, waxaa jirta 2 qalad oo ku saabsan Kirishtaanka oo ay badiba dadka qalad u fahmaan. qaladka koowaadna waa jiritaanka 3 ilaah. dhab ahaantii 3 madhab ee Kirishtaanka ee kala ah Catholic, Orthodox iyo weliba Protestantaha waxay wada aaminsan yihiin hal ilaah, se waxay u muujiyaan sida 3 xagal oo waa aabe, canug iyo ruux barakaysan. yacni waa hal ilaah se ku jiro 3 qof oo kala duwan, waa sida adke, dareere iyo weliba habo laga soo saari karo biyo. yacni biyuhu 3daas xaaladba waa laga dhigi karaa. qaladka labaad ay dadku ka aaminsan yihiin diinta Kirishtankana waa inay dadku moodaan in Towraad, Sabuur iyo Injiilba ay yihiin 3 kitaab oo kala duwan. se Kirishtanku waxay u yaqaanaan 3daasi kitaab Kitaabul Muqaddas oo waa u hal kitaab. Towraad, Sabuur iyo Injiilna waxay ka yihiin kitaabkaasi cutubyo. se guud ahaan Kitaabul Muqaddaska waxay u qaybiyaan 2 qaybood oo kala ah Old Testament iyo New Testament, oo Nabi Ciise inta uusan dhalan ka hor kitaabadii ahaa ee loo soo dhiibay Nabi Muuse iyo Nabi Daa'uud waxay u yaqaanaan Old Testament, halka kolkii uu dhashay kadib
kitaabkii ahana ay u yaqaanaan New Testament. Diinteena suuban waxay inoo sheegaysaa in Kiristaanka iyo Yahuudaba qaar ka mid ah aayadihii kitaabyadooda ay bedeleen. waxyaabihii ay bedeleenna waxaa ka mid ah inay Nebi Nuux ku tilmaameen nebi cabtooy ahaa oo seexda isagoo qaaban, deedna carruurtiisa inta ay ka xishoodaan ayay dhar ku dabooli jireen. Nebi Luutna waxay ku tilmaameen inuu carruurtiisa u galmoon jiray si uu u waariyo jiritaankiisa. xitaa intaan ciwaankan baarayay waxyaabo aanan afka ka sheegi karin ayaan arkay oo ku saabsan nebiyada kale sida Nebi Daa'uud inuu ahaa zaani, shirqool maleege iyo dilaa, halka Nebi Yacquubna ay ku tilmaameen inuu Alle subxaanahu wa tacaala la dagaalamay. yaa Allah, bal ka waran qoom diin ahaan waxaas u aaminsan misana uuba kitaabkooda muqaddaska uu ugu qoran yahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. haddaba ceebahan kitaab ku tilmaamay nebiyadii Alle uu soo diray uma malaynayo inuu jiro qof caqligiisa taam yahay oo rumaynayo. halkaasina waxaa ku burburinay labadii diimood ee Kiristaanka iyo Yahuuda. bal kaalay aan si wada jira u indho-indhayno diinta Islaamka diinta Islaamka waxaa saldhig u ah kitaabka Quraanka iyo xadiiska Nabiga sallallahu alayhi wasallam. labadoodana waxaa laga helayaa mucjisooyin tirabeel ah oo xitaa sayniska maanta uu qaarkood cadeeyay iyo mucjisooyin uusan weli cadaynin. inta aanan mucjisooyinkaasi ka hadlin ka hor, bal ka waran 1400 oo sano ka hor dhul saxara ah oo aan lagu barin aqoon-yahano, dadka deganna ay yihiin jaahiliin, wiil yar oo ari raac ahaa misana ummi ahaa oo aan qoraal iyo akhris midna aanan aqoonin inuu yiraahdo nebi ayaan ahay, cadeymahayguna waa kuwaana, deedna uu aqriyo aayado aad loogu tacajabay iyaga oo kalena ilaa iyo qiyaamaha aan la imaan karin. haatanna bal aynu tusaalooyinkoodan ka soo qaadanno mucjisooyinkii uu Quraanku sheegay. aqoon-yahano ay ka mid yihiin Aristo, Bruno, Galileo ilaa iyo aabbaha sayniska Newton waxay aaminsanaayeen aragtida static universe theory, taasoo aragti sharaxday in koonku yahay mid taagan. 1924 aqoon-yahan Ruush oo lagu magacaabo Alexander Friedman iyo Georges Lemaitre ayaa cadeeyay in koonku uusan ahayn mid taagan ee uu yahay mid dhaqaaqayo weliba ballaaranayo. sidoo kale aqoon-yahankii weynaa Edwin Hubble 1929 isagoo isticmaalaya telescope ayuu qaaday in xidiguhu si kala fogaanayaan, waxa uuna sheegay wax waliba oo kala fogaanayo inay ballaaranayaan. 1400 oo sano ka hor arrinkan ayaa Quraanka inoo sheegay, isagoona yiri Allah subxaanahu wa ta'ala was-samaa'a banaynaaha bi'aydin wa innaa lamuusicuun. 1971diina iyadoo la isticmaalayo aalad ultrasound ah ayaa la qaaday in carruurta kolka ay ku jiraan uur ku jirta ay ku dhex sugan yihiin 3 mugdi, waxaana loo bixiyay anterior abdominal wall, the uterine wall iyo aminochoric membrane. Quraanka ayaa inoo sheegay midda 1400 oo sano ka hor oo suuratu Sumar aayadeeda 6 ayaaba ka hadlaysa arrinka. xitaa Quraanku waxa uu sheegay wax la xiriira chemistry-ga, waliba elementiga 26 ee ironka oo suuratul Hadiid aayadeeda 25 waxa uu inoogu sheegay Alle inuu birta soo dejiyay. waxaana macquul inaad isweydiinayso birtu soo macdin ma ahan oo dhulka lagama helo. si asal ahaan yacni marka ugu horeysa si loo sameeyo bir waxaa qasab ah in la helo kul aad u sareeyo. dhulda ama santarka dhulka kulkiisana waa 6000 oo centigrade oo macquul ma ahan inuu kulkaasi sameeyo bir. oogada qoraxda kulkeeduna waa 5500 oo centigrade. kulka bartamaha qoraxda waa 15 milyan oo centigrade oo xitaa kuleelkaasi laguma sameyn karo birta ee kaliya waxaa sameeyay xidigo aad u waaweyn oo ka weyn qoraxda, kulkooduna uu gaarayo wax ka badan 100 milyan oo centigrade. sida nova iyo supernova oo kale ayaa aad u weynaanayo, kadibna waxay gaarayaan heer ay dhaqaaqi waayaan, kadibna waa ay qarxayaan, halkaasna waxaa ka sameysmayo birta. saynisku hadda ayuu sheegayaa arrinka, halka uu Quraanku sheegay 1400 oo sano ka hor, isagoona Alle subxaanahu wa ta'ala yiri waxaynu soo dejinaa birta. soo dejintana waxaa loo isticmaalaa wax kor ka yimid. sidoo kale suuratul Anbiya aayadeeda 32 wuxuu Alle subxaanahu wa ta'ala inoogu sheegay in samada loo yeelay saqaf wax ilaaliya, isagoona saynisku uu cadeeyay midda 1912diina waxa uu saynisku sheegay inay dhaqaaqaan buuraha, halka Quraanku 1400 oo sano ka hor inoogu sheegay suuratul Namli aayadeeda 88. kolka aad fiiriso aayadaha kale ee ka hadlayo samaynta malabka, laba bad oo aan isku darsamayn iyo weliba furashada room oo ilaa iyo haatan aanan weliba dhicin,
waxaad ogaanaysaa in kitaabkaasi yahay mid mucjiso ah. waxaa taa ka sii daran 1400 oo sano ka hor sayniska iyo teknoolojiyad xilli aynan horumarin. sidee ayuu qof aanan qoraal iyo aqris toona aanan aqoonin u dhihi karaa arrimahaasi haddii aynan mucjiso ahayn? halkaana waxaynu ka qaadan karnaa in macalinka aynu raadinayno uu yahay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kitaabka aan raadinaynana uu yahay kitaabka Quraanka, Ilaahi aan raadinaynana inuu yahay Allah subhanahu wa ta'ala. haddii aad xasuusataana markii ugu horeysay waxaan isweydiinay maxay tahay sababta aan islaamka ku dooranayno, waana taasaa jawaabta. ugu dambeynna haddii aad halkan nala soo gaarteen la jirkiina farxad ay noo tahay saaxiibayaal. inta aan barnaamijka xiga kaga kulmi doonana waxaan idinkaga tagaynaa dunidu waa dulqaad, dadaalkuna waa muhiim.